السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام أصحابتكم حيران شانل كيك مرويلو سود وهذا فيديو عصب يوم مانتا waxaan idin hayaa maanta rabo inaan ka hadlo waxay ahayd daraad video waa youtube kayga live ka soo galay live youtube aan soo galay live youtube markaan soo galay waxay noqon weysay in maxaan lahaa sheegaan aan codkayga in la maqlo in noqon weysay waa fiirsaday videogu markii oo kadib oo live ka dhamaaday dib u fiirsaday dhigaan wato earphone dhigaha dad waxay suurtageli waayeen inaan video dhameysto معناها إنا فيديو سيفان لو مقلة استغفر الله فيديو إن لما مقلو لقيه وحبا كجري شعاع يو قيلي يريريس لبخا كجري وإياق سمينا يان ما أخانا لأنه ما يشوك إمادي سياس درتاد فيديو قانو نكسو سمينو يعني أنا فيديو قاس وحا أقاته إني عدكيغو مقلين وعدكيغو قو آيو وحسن إيقاها وصوبها انترنت كموسا هانا سياس درتاد فيديو قانو نكسو دوو يا مانتا maalin wanaagsan inta maalin u tahay qofkii habeen u tahay habeen wanaagsan qofkii casr u tahay casr wanaagsan qofka te maqrab u tahay maqrab wanaagsan subax wanaagsan galab wanaagsan waqti walba wanaagsan oo dib u tahay aan ku rajaynaa insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala ka bariyay inuu wadankeena nabad nooga dhigo video maanta soo duubay waxa qabsigiisa sidii oo videoga darahad ku aragteenba waxyaabaha aniga YouTube u soo galay dadka su'aalo weydiinaya badan waxay leeyihiin maxaa YouTube ku qasbayna YouTube soo hadashid inaa sameeysid horta aniga waa shaqeynaa waxana qof mas'uuliyad saaran tahay oo video sameey maalin walba oo isagoo micnaha shaqadiisa gudanaya waajibaadkiisa anahay ana waajibaadkay gudanaa video ani aan sameeyay aan rabaa inaan channelka soo geliyo ana micnaha dadkayga waa igelina inaan video sameeyo waxaan rabay saas darteed waxa igu qasbayna YouTube sameeysto inaan idin sheego horta ma jiraan wax daruufo ay ugu qasbaan inay sameeysto YouTube-kana waxaan u sameeyay muhiimada waxay daan u sameeyay YouTube-ka waxaan u sameeyay inaa wixii aan sameeynayo oo shaqadeyda dadkay kula wadaan tan labaad waxay ahayd waxa jiro waxyaabo qarsoon oo gobolka Shabeellaha Hoose faa'iidooyin maxaa la yiraahdaa oo aad u qurux badan oo ku jiro oo qarsanaan jiro oo micnaha sidii qeyraadkiisa oo qarsan maxaa la yiraahdaa inuu meelaha qaar ay abni yihiin oo haddana qarsan yihiin oo laga been sheegaa wallahi meel hal abni ma lama tii karsan waa la dhahayo darteedaan u sameeyay inaan dadkayga u soo gudbiyo hadii YouTube-kayga aad subscribe saartid waxa ogaanaysaa wax dhabta ah ka jiro maxaa la yiraahdaa saxda ka jiro Koonfur Galbeed ama Shabeellaha Hoose taas darteed waxaan u sameeynaa waxay ahayd inaan qeyraad ka soo bandhigo maxaa la yiraahdaa oo gobolkaas faa'iidooyinkiisa meelaha quruxda badan meesha nabad ah oo laga beeshigay oo leeyahay nabad ma ahan saa aragteen hore uu ku soo galiyay YouTube-kayga video laga sameeyay qoryooli soo galiyay video aan ka sameeyay awdheegna soo galiyay video aan ka sameeyay marka iyo baraawe iyo maxaa la yiraahdaa ishaq afgooye iyo aan ka soo sameeyay iyo walaweyn intaba anaga waa tignaa waa ka shaqeynaa qofka dhahay amni ma ahan aan rabaa markii inaan tuso ina aniga tagay awdheeglo oo video soo sameeyay anagoo faraxsan oo qoslay ka shaqeynaa qeyraadka iyo quruxda meesha taalo anigoo ka shaqeynaayo oo joogo qoryoole oo faraxsan oo cambihi uu ka aruursanayo oo saas cunayo aan soo galiyay muhiimadaas waxay ahayd taas waxay ahayd inaan tusaayo in qoryoole la tagi karo magaalada nabad tahay dhalinyarada joogta in laba sobood galeen karo la aan gar hada anaga tagin dadka way dhiiranayaan waxbay si fiican u qabsanaa hadii wax yiri uu ka maqnaa dhameystirnaa saas darteed aan rabaa in maxana YouTube ka soo sameeyay tan labaad oo sameystaa waxay tahay YouTube-kayga hadii dad badan ay ku soo xirmaan meena dad badan markay ku soo xirmaan oo soo bato mustaqbalka dhow waxa weeyna sameysto ganacsigayga aan rabaa inaan ku soo gudbiyo in la aragtaan dadka asxaabteeda ay la arkaan wax cusub aan sameeynayo marka sidaas darteed aan u sameeyo YouTube-ka waxaan kaloo tan labaad waxay tahay hadii aan fursad u helo sidii mar dhaweed aan u tagay socdaalkay galmudug oo kale waan galmudug ku aaday oo aan maxaa la yiraahdaa aan dadkii oo reer galmudug oo Soomaaliyeed oo meesha degan aan xaaladooda iyo sidii ay yihiin wax ka soo baranayay in dadka wadankaaga aad baratid oo dadkaaga aad baratidna waa muhiim Soomaalidu waa abti iyo adeer iyo habaryar iyo eedo iyo wiil seedigiisa marka sidaas darteed hadaa tago aan galmudug oo aan wixii qurux badan sida u soo bandhigay arkaysiin meelaha aan tagay dadka waxaan arkay dad badan oo maasha Allah ii hambalyeynaayo
oo dhahayo maasha allah si wax kale ka aaminsanaa maadaama ay kusoo dhaweeyeen oo ay yihiin dad qurux badan oo sharaf badan oo karaam badan anina waan tagaya qof dhahayo waan arkay okay inta u socoto waa u hambaleynayaa waxaan u sheegayaa inay dad qurux badan oo Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo iyo Soomaalinimada ay ku weyn tahay ka horeeyaan ay kusoo dhaweey doonaan mid kale waxaan rabaa hadii aan fursad kale aan inaan nafteyda aan ka raadiyo iyo shaqadeydaba aan ku aado gobollo kale kamid ah gobollada Soomaaliya sida inaan tago Puntland inaan tago gobollada Baybakol oo hadda Baydhabo kaliya tagay ama leena ay xudur hal maalin oo elboorkeeda ka soo laabtay inaan ayagana sii tago inaan tago magaaladayda ani aan leeyahay yaa Kismaayo inaan tago meelaha kale oo la tagi karo gobolkayga Jubbada Dhexe hadda nabad ma ahan insha Allah markuu nabad noqdo isagana kheyraadkiisa aad u qarsan waa idin tusi doonaa yaa dhow ma dhaafa halkii aboogay way cambaha meesha yaalo soo qurux badan caraftiisa iyo sare marka sidaas darteed dadka oo lehmina ka xun anay socodkayga iyo maxaa la yiraahdaa iyo inaan dadkayga soo barto waxaan u sheegayaa walaalayaal raali ahaada ma fahamteen haddaadan waqti u helin inaad soo barato dhulkaaga aad tagto gobolada kale yaa maxaan ku diidayaa marka waxaan rabaa dadka kale ii sheego inaan tago Hirshabelle inaan tago maxaa la yiraahdaa gada waa u baahanaa inaan tago meel walba fursadaan heli karo oo dhul Soomaaliyeed ah waa tagaa meel walba kamid ah meena hadii maxaa fursad kale aan sii helo Afrikada waa sii tagaa socodkayga ma ahaanayo meena waxa u yiriise faanteen marka waxaan rabaa hadda fursad heshid igu dayo soco adigana dadkaaga baro wax ka soo arag la soo qaybso sida aad tahay ayagana ha ku soo dhaweeyaan muhiim ah qof tabarta lagu meeso inta qof ku soo dhaweeyo afkaas midka caafimaad ku sameeyo midka guriga isku goglo inta oo sharaf karaameeyay insaan marka sidaas darteed aan rabay inaan ka aan mar labaad video-ga ugu soo celiyay inaan si fiican u maqashaan codkayga rabay dabcan waxaan u maleynaa codkayga si fiican u maqlaysid marka ay fiirsanaysid كان فيديو إن دميستid إن subscribe ساعات إن share جريست waxaan rabaa gabdhaha aniga oo kala wiilasha aniga oo kala rabaa inay gobolada kala sii aadaan hadii ay garab iga baahihiin garab diyaar ah waxa aniga inaan siiyo inaan sabad galayo oo ay socdaan dadka Soomaalida waxaan rabaa inay isdhexgal loo sameeyo inay dhalinyarada isku socdaan inay soo maxaa la yiraahdaa bartaan in maxaa la yiraahdaa qof walba qof kale ama gobol kale dhaqankiisa u barto dadka Soomaalida waxa dhaqana ka dhaxeeyo maxaa la yiraahdaa waxa ka dhaxeeyo xeerar ay leeyihiin waa dad yaa dawlad marka aad bulshada dhex tagtid waa dad macnaa isku hadgoodbinba oo dawlad amal ayaga u dhisan macnaa dawladnimada oo meelaha kale ay raadinaa shacabka Soomaaliyeed ku dhex jirta maxaa arkaysaa maxaa la yiraahdaa laba fadhiisadaas waa kala qabanaa odayaasha isku imaanay ayaga wax xalinay ayaga go'aan gaar ayaga wax sameynaa macnaheedu maxaa waay dawlad waay samahan shacabka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waa dad dawlad ah dawladnimadana oo dhashay oo dhigooda iyo iskaxdooda ka sameeysanba loo baahno ma fahanteen in wax kale loo sameeyay marka waxaan idin lahaa waa ku mahadsantahay daawashadaada sharaf iyo karaama leeda video inuu iga dheeraadan ka absanaayay ma rabi oo qof video lagu daalayo hadhow oo aad ka cajisaysin in aad sameeyo sidaas darteed waa ku mahadsantahay daawashadaada soo dhawow channelkayga sharaf iyo karaama leedahay anigana wuu ku soo dhaweynayaa asxaabteedna ku soo dhaweynayaan waxaan kala rabaa waxaan ku daraa laakiin waxaan ku daraa waa mahadsantahay daawashadaada sharaf iyo karaama leedahay video intaan ku soo gudbeynayaa waa idin jeclahay asxaabteyda wixii xun mina qofka xun ma aragtay ani uma dhutinaayo isaga iyo isdaalin ma fahanteen saas darteed marka waxaan leeyahay isdaalin anina uma dhutinaayo qof maxaa la yiraahdaa sheego oo xun waa ka sii soconaa horteydan u socon doonaa waana ku mahadsantahay daawashadaada sharaf karaama leedahay waa idin jeclahay